السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. muuqaalkeena maanta wuxuu noqon doonaa sida ciwaanka muuqaalka ku soo aragtay waa maxay darknet, waa maxay deepnet, waa maxay surfacenet. waxaan arki doonaa qaybta madow ee internetka ee aan qofna warkayn. moogta horta inaan muuqaalka bilaabno boqolkiiba internet intaad ka isticmaashay inay tahay boqolkiiba 4%, 4% bay dadka adduunka oo dhan internet ka isticmaalaan. waxaan arki doonaa waxa loo yaqaano darknet, meesha ay hackersku internetka kaga noolyihiin, hackerska dhabta ah, meesha ay burcadbadeed iyo meelaha hubka sharci darrada iyo meelaha lagu kala iibiyo, meelaha dawladuhu ka wada hadlaan. runtii muuqaalka waxaan ku arki doonaa sir badan oo aanad ka ogeyn internetka. waa maxay darknet, waa maxay deepnet iyo waa maxay surfacenet. balse intaan muuqaalka u gudbin, muuqaalka waxaan ku sharxi doonaa xitaa ifan qaabkaad u access garanayso. balse intaan waxaan oo dhan u gudbin, ogow this video is only for educational purpose. muuqaalkan kaliya waa waxbarasho, anigu kuma tusayo qaabka meelaha loo galo, qaabka waxaa loo sameeyo, balse kaliya muuqaalka waxaan kuu sheegay waxyiin kaliya tasaad information oo kaliya ama macluumaad ahaan u ogaato. balse this video is only for educational purpose. muuqaalkan mar labaad waa kaliya ata waxbarasho marka aan kuma tusayo. balse muuqaalka waxaan kugu tusi doonaa soo kale qaabka loo access gareeyo. say intaan u gudbin mawaadiicda oo xisaab badan oo dhan kusoo dhawaada qaybta dambe ee muuqaalkeena. ugu hore waxaan doonayaa inaan idin kala sheego saddex qaybood baa internetka loo qaybiyaa. saacadda qor ku sheegay 4% internetka ayaad ugu adeegsataa, laakiin inta hadhay ma adeegsateen. waad ku tusi doonaa balqaabka 4% u adeegsato, balse laakiin internetka waxaa loo qaybiyaa saddex. waa surfacenet iyo wax loo yaqaano deepnet iyo wax loo yaqaano darknet. darknet waa meesha ugu xisaab badan aad muuqaalku arki doono. aan ka bilaabay surfacenet. surfacenet wax loo yaqaano wax allaale wixii search engine soo qabto. for example YouTube wax allaale waxa ku jiro dhan waa surfacenet. Google, Bing, yani wax allaale wixii internetka baadho, website-yadan wararka ku soo qora, kuwa mawaadiicda IT-ga soo qora, kuwa mawaadiicda caafimaadka soo qora, wax allaale wixii aad YouTube ka baari karto ama aad Google ka baari karto ama search engine-nada kale sida Yahoo iyo DuckDuckGo aad ka baari karto ayaa loo yaqaanaa surfacenet. waana 4%-ga dhammaan aan wada adeegsano. qaybta labaad waxa loo yaqaanaa deepnet. deepnet waa wax allaale wixii ay ka soqeeyaan furasireed. Facebook tusaale miyay Google ka baari karaa sawirada Facebook ku jira? waa maya. sawirada Facebook ku jira ee qofkii doonaaba soo galiyay Facebook sawirada la soo galiyo miyaan Google dhexdiisa ka arki karaa? waa maya. ama YouTube dhexdiisa wax allaale bangigaaga transactionada ama lacagaha kugu jiray waxa dirto miyaan arki karaan? Google ka baari karaa? waa maya. wax allaale wixii furasireed ka horeeyo ayaa isaguna waxa loo yaqaanaa deepnet. waana qaybta ugu weyn internetka. waxaana Facebook, bangiyada dhammaan meel kasta oo sensitive ah furasireed baa ka horeeya. furasireed qaarkood xitaa furasireedyo iyo waliba stable kale oo additional waa ka horeeya. marka deepnet waa qaybta internetka ugu weyn. darknet waa sanadda ku sheegay waa meelaha dawladuhu contacting ka sameeyaan, dawladda iyo militarigu markay wada hadlayaan ama madaxweynaha iyo markay wada hadlayaan militarigu internetka wada hadlayaan halkay ka wada hadlaan weeye. runtii ma ogid waqti imka muuqaalkan aad daawanayso internetka aad ka daawanayso simikaadka ama nadweyga aad adeegsanayso shirkadda iskale inay ogaan karto muuqaalkan hadda aad aniga daawanayso ee aad Soomaali tech ka daawanayso inay arki karayso muuqaalka daawanayso. wali ma ka fakarto kamaniga aad adeegsanayso internetkiisa ee aad simikaadka moolka ku jira kamaniga leh iyo hadduu yahay wireless-ka guriga kugu xiran ama nadweyga guriga kugu xiran wuxuu ogaan karaa dhammaan meel kastoo internetka ka booqato. ifan wuxuu ogaan karaa fariimaha darto walitaan damaad galis may hadaba dawladuhu siday wada hadlaan maadaama internetka noocan yahay. darknet waa meesha ugu xisaab badan internetka. waa meesha la isku wadaago burcadbadeed xubka isku dhaafsato. waa meesha dawladuhu ka wada xiriiraan, waa meesha militariga iyo dawladuhu ka wada xiriiraan, waa meesha hackerska waaweyn ee adduunka dhibaatada ku haya ku nool yihiin. waaye haddaba saddexdii baad maadaama aynu kala ogaanay. deepnet waxaa ka mid ah Facebookaaga sawirada ku jira, waxa ka mid ah bangigaaga furasireed baa ka horeeya si loo ogaado lacagta ku taal iyo transactionada ama lacagaha aad dirtay kuwa lagu soo diro. surfacenet waxa allaale wixii Google iyo search engine soo qaban karo clearnet ama surfacenet baa la yiraahdaa wax allaale wixii yaalo. haddaba aan ku soo noqdo deepnet saynu ognahay furasireed baa ka horeeya. surfacenetna dabcan haddaba Google wax ku qorto ama muuqaalkan aad daawanayso hadda YouTube-keena ka baadho ama channel-keena Soomaali Tech hadaad YouTube ku qorto waad haysaa. haddaba sidee loo access gareeyaa darknet? darknet looma access gareeyo sida caadiga ah, mana access gareyn karo qof balse intaanan kuuba sheegin inaad access gareyso waa inaad ogaataa waddankaaga in laga ogol yahay in kale.
taas waa yawran marka wadamada qaar waa illegal in yani laga ogola xitaa ifan intaan wadanka loo gudbin kambaniyada internetka bixiya ee sida kambaniyada imka network internetka laga daawanayso aad ka iibsatay hadduu yahay sim card hadduu yahay wireless ba badankoodu way balow garayaan intooda badani in la galo darknet marka waa in wadankaaga in laga ogoliyo in kala adeegto anu kaliya tan muuqaalka waa information waa macluumaad laakiin ugu wadankaaga in laga ogoliyo wadamada qaar lagama ogola qaarkoodna waa laga ogoliyo ifan wadamada qaar waa dambi haddii aad access garayso ama lagu ogaado waana lagu dabagelayaa haddii loo arko inaad meelaha gasho maadaama lagu arkayo qof suspicious ama qof wax qarinaya ama wax khaldan wada haddaba maadaama inta aan ku kala ogaanay qaabka loo galaya waxaa laga galaa browserro u gaara sida yani Chrome iyo Firefox waxaas ma galaan waxaa jira browserro u gaara balse intaanad gelin karo waa inaad iska ogaato yani maaha meeshan meel loogu talagalay qof walba inuu iska galo dhib baa kaaga iman kara computerkaaga ama telefoonkaaga waa la jabsan karaa waa la dhex geli karaa especially haddaad tahay qof yani operating systemyada Windows oo kale adeegsada looma baahna inaad access garayso marka browserrada laga galo dabcan waxaan soo gelin doonaa linkiyadooda qaar ka mid ah Telegram channelkeena waliba kan ugu xisaab badan ee most of all laga galo ayaan soo gelin doonaa wax loo yaqaan Tor browser marka waxaan gelin doonaa linkigiisa Telegram channelkeena kaama qad ka gasho kadib inta ka dambeeya aad geli doonaa bas anigu kuma sheegay qaabka loo adeegsado maadaama aan kaliya tan muuqaalkan yahay macluumaad farqigaas ayaa u dhaxeeya darknetna waa meesha dawladuhu ka wada xiriiraan halka dhiirna yahay meesha fariimaha la isugu dayo runtii muuqaalkan tan ayaan ku soo fahmay waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan saddexda wax ku kala ogaatay qaabka loo access garanayo iyo faa'iidooyinkooda balse ugu muuqaalkan kaliya mar afraad ama mar saddexaadba waa waxbarasho kaliya mas'uulka manahina dad qaab qaldan u adeegsato haddaba muuqaalkan tan ayaan ku soo fahmay saacada kor ku tilmaamay haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday oo aan rajaynayo in badan like noo saar haddii aanad waxba ka faa'iidin waqtigan ugu kala midana dislike haddii jirto ciidaad ogtahay inay mawduucdan ka hesho oo runtii si uga faa'iideysato una ogaato farqiga u dhaxeeya iyo qaabka loo access garanayo haddii u baahdaanba runtii la wadaag muuqaalkeena si asxaabadana channelkeena ugu soo dhanto dad fara badan uga faa'iideystaan muuqaalkeena inta muuqaalkan ka ku xigayna ku kulmi doono anaga idinka waxaan rajaynayaa khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh